shirka wada tashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo saaka lagu waday in uu ka furmo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa mar kale dib u dhacay sida ay sheegayaan wararka qaar ee soo baxaya. Shirka oo ah mid xasaasi ah ayaa waxa ballantu ahayd in uu furmo Khamiistii la soo dhaafay balse waa uu baaqday kadib Villa Soomaaliya waxa ay shaacisay in uu bilaaban doono shirka 12 bishan September oo maanta ku beegneed. Haddana waxa la soo sheegayaa in uu dib u dhacay shirkaasi. wararka ayaa sheegay in dib u dhaca shirka ku yimid ay sabab u tahay safarkii degdega ah ay galeen madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Galmudug oo shalay si degdeg ah uga ambabaxay magaalada Muqdisho. Axmed Madoobe ayaa u duulay magaalada Kismaayo kadib qarax ka dhacay magaaladaasi halka qoorqoor uu u dhoofay dalka Kenya isaga oo kulan kula yeelan doona halkaasi saraakiil ka tirsan Imaaraadka Carabta sida wararka aanu ku helayno. caqabadaha ku horgudban shirka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay si xoogeysanayay waxaana wali ismariwaa u dhaxeeya dowladda dhexe Jubbaland iyo Puntland. shirweynaha oo daba socda shirkii Dhuusamareeb 3 ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa dhamaystirka heshiiskii lagu gaaray magaalada Dhuusamareeb iyo arrimaha doorashooyinka dalka. xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah mid wali cakiran waxaana haatan socda kulamo gaargaar ah oo ay yeelanayaan dhinacyada siyaasadda kuwaasi oo ka socda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed 5TV Muqdisho.